Jubbaland oo soo dirtay qaybtii labaad ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee Raaskambooni. Maamulka goboleedka Jubbaland ayaa ku howlan soo daabulada ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaanka ee deegaanka Raaskambooni kadib markii looga adkaaday dagaal ka dhacay halkaasi. Qaybtii labaad ee ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta diyaarad laga soo saaray deegaanka Raaskambooni waxayna ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Maamulka goboleedka Jubbaland ayaa maanta mar kale soo goodisay qaybtii labaad ee dhalinyarada laga soo qabtay dagaalkii ka dhacay Raaskambooni iyadoo diyaarad ku soo celisay magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka goboleedka Jubbaland. Ciidamada inta soo bixin waxa soo sagoodiyay saraakiil ka tirsan qaybta 43 ee ciidanka xoogga dalka waxaana Jubbaland ay sheegtay in la soo qalday dhalinyarada sidoo ku sheegtay warqaal ka soo baxay maanta. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Jubbaland iyo taliyaha qaybta 43 ee ciidanka xoogga ayaa goobjoog ahaa sagoodintii dhalinyarada kuwaas oo Xasan Sheekh uu ku soo qalday deegaanka Raaskambooni ayaa lagu yiri war-saxaafadeed. Sidoo kale waxa la raaciyay deegaanka Raaskambooni ayaa 15 sano la soo dhaafay ahaa mid nabad. Xaaladda deegaanka ayaa hadda degan waxaana si buuxda u maamula ciidamada Jubbaland oo Arbacadii la soo dhaafay dagaal ku galay magaalada Raaskambooni. Si kastaba ha ahaatee waxaa jiray ciidamo boqolaal gaaraya oo u baxay dhankaas iyo xadka Kenya kuwaas oo ayagana lagu soo celin doono magaalada Muqdisho.